ololahan ballaadhan ay maanta qaadeen maamulka gobolka Daadmareed ka degmada isuduwayaasha wasaaradaha deegaanka iyo beeraha iyo waliba salaadin iyo cuqal ayaa waxay cagta ku soo mariyeen seerayaal si sharci darro ah looga ooday deegaanka Gawaama oo hilaad ahaan dhinaca waqooyi kaga beegan ilaa 24 kiiloomitir magaalada Oodweyne taasi ay muddooyinkan dambe ka taagnayd muran iyo khilaaf xagga dhulka waxayna madaxdan miisaanka culus leh ka hor baabiinta seerayaasha kulan la qaateen gudiyada iyo bulshada ku dhaqan tuulada Gawaama isuduwayaasha wasaaradaha deegaanka iyo beeraha Cabdikhadar Odaywa iyo Jamaal Deeq ayaa halkaas digniino culus oo ku taxalluqa ilaalinta deegaanka uga jeediyay bulshada isla markaana tilmaamay inay kala xadeyn doonaan dhulka loo aqoonsan yahay beeraha iyo waliba dhul daaqsimeedka qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Cuqaal iyo Suldaan Cabdiraxmaan Cabdullaahi Awgood ayaa iyaguna ka warramay faa'iidada uu leeyahay deegaanku iyo waliba siday muhiim u tahay in la iska kaashado ilaalinta deegaanka waxay sidoo kale mas'uuliyiintani bulshada ku booriyeen inay bilaabaan xoolaha loo ururinayo ka qayb qaadashada wadada isku xidhaysa magaalooyinka Burco Oodweyne iyo Hargeysa gudoomiyaha gobolka Daadmareed Jamaal Xuseen Hurre ayaa isaguna digniin culus u diray cid kasta oo ku hawlan oodashada dhulka iyo waliba wadooyin uu sheegay in si sharci darro ah loo xidhay isla markaana tilmaamay inay cagta marin doonaan wax kasta oo caqabad ku ah xoolo daaqeenka iyo wadooyinkan ay marayaan xoolaha iyo gaadiidku taasi oo gudoomiyuhu xusay inay deegaano badan ka soo baabi'iyeen odahan isagoo xusay inay haatan joogtayn doonaan ilaa iyo inta ay ka dabar go'ayso deegaanadan isla markaana ay ciddii ka hortimaada ay sharciga marin doonaan ugu dambayntiina howlgalladan lagu dabar jarayo odaha sharci darrada ayaa daba socday olole muddooyinkan dambe ay wadeen isla markaana u tafaaxayteen madaxda dawladda iyo weliba madax dhaqameedku taasi oo lagu ciribtirayo odaha